bal markana dhanka Australia aynu u yaacanayo weerarkii shalay lagu beegsaday goob ay ka socotay xaflad diimeedka Yahuudda ee Hanuuka loo yaqaano. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in hay'adaha ammaanka ee Israa'iil oo ay ku jirto Mossad ay ka qayb qaadanayaan baaritaanada socda ee weerarkii ka dhacay Australia kaasi oo sababay dhimasho dhaawac soo gaaray dad badan oo Yahuud ah. kanaalka I24 ee Israa'iil ayaa sheegay in baaritaanku uu weli ku jiro marxaladihiisii hore isla markaana dhammaan suurtagalnimada la baarayo iyadoo aan weli la go'aamin in weerarku ay fuliyeen dad gudaha Australia ah ama inay ku lug lahaayeen dhinacyo kale oo dibadda ah. sida uu warbixintan lagu tilmaamay Israa'iil ayaa bilihii la soo dhaafay waxa uu dirtay digniino hay'adaha caalamiga ah kuwaasi oo ku saabsan jiritaanka shabakado ay ku tilmaamtay argagixiso oo ku sugan gudaha waddanka Australia kuwaasi oo qaarkood lala xiriiriyay inay gacan la leeyihiin Iiraan. dhanka kalena aabaha Ahmed al-Ahmed ninka muslimka ahaa ee la tacaalay mid ka mid ah weeraryahanadii ama dagaalamayaashii xeebta Bondi weeraray ayaa ku tilmaamay wiilkiisa geesi Australian ah isagoo la hadlayay telefishinka ABC Australia. Maxamed Fatih al-Ahmed waxa uu sheegay in wiilkiisa hore uga tirsanaa ciidanka booliiska iyo amniga isla markaana uu si dabiici ah u dareemay mas'uuliyadda badbaadinta dadka markii uu arkay dhiigga iyo dad badan oo dhaawacan. war kale oo arrimahan la xiriira ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa si cad u diiday hadalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee isku xiraya aqoonsiga Australia ay aqoonsatay dowladda Palestine iyo weerarkii ka dhacay xeebta Bondi shalay. Albanese waxa uu sheegay in ujeedadiisu ay tahay mideynta qaranka isla markaana la garab istaago bulshada Yahuudda ah Australia xilligan adag. isla wararkan dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday oo shaacisay qorshe ay ku adkeynayso shuruucda hubka kadib weerarkani. Albanese waxa uu sheegay in la sameyn doono diiwaan qaran oo hubka la xiriira lana xadidi doono tirada iyo muddada shatiyada hubka si looga hortago rabshadaha caynkani oo kala ah inay mustaqbalka mar kale ka dhacaan dalka. waa xagaag daawadayaal haatana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambaysa ee barnaamijka oo xubinta falanqaynta taasi oo nalaaba ku soo qaadanay warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan warada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo sirdoonka. sidoo kale waxaan ka marnay xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaadadhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa soo baxaya macluumaadyo dheeraad ah oo ku aadan weerarkii toogashada safmarka ahaa ee shalay ka dhacay xeebta ee magaalada Sydney Bondi lagu magacaabo taasi oo ay ka socotay xaflad diimeed dadka Yahuudda ah ay qabsanayeen. dhinaca kalena khubarada arrimaha siyaasadda ayaa si weyn waxay uga faalowdeen sida Netanyahu iyo xukuumaddiisu ay isugu dayeen inay u bedelaan sawirka ninkii muslimka ahaa iyo guud ahaan dhacdadaasi shalay ka dhacday waddanka Australia. haddaba ninka muslimka ah ma waxa uu fashiliyay qorshihii Israa'iil ay uga faa'iideysan lahayd weerarkaasi maxayse tahay kaalinta sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay ka qaadanayaan howlaha la xiriira weerarkani. warbixin iyo falanqayn arrimahan ku aadan oo khubaro ay ka hadlayso waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. weerarka lagu beegsaday Yahuudda u dabaaldegaysay munaasabadda Hanuuka ee shalay ka dhacay xeebta caanka ah ee Bondi ee ku taala Sydney kaasi oo sababay dhimasho ayaa kiciyay falcelin siyaasadeed iyo mid warbaahineed oo ballaaran. falcelintani waxa ay ka baxday xadka sida amni ahaan loogu maareeyo dhacdada iyadoo oo sidoo kale furtay dood ku saabsan macnaheeda iyo sida loogu adeegsanayo colaadda Falastiin iyo Israa'iil. iyada oo mas'uuliyiinta Australia ay diradda saareen in waxa dhacay lagu sifeeyo dambi la cambaareeyo oo u baahan baaritaan iyo isla xisaabtan, Israa'iil ayaa si degdeg ah ula xiriirisay weerarkan sheekooyin ballaaran oo ku saabsan nacaybka Yahuudda ka dhanka ah iyo aqoonsiga dowladda Falastiin, taasi oo dhalisay fasiraado kala duwan oo ku saabsan ujeedooyinka iyo xadka isku xirkan. Dr. Ratib Junaid, madaxweynaha isbahaysiga golayaasha Islaamiga ah ee Australia, ayaa waxa uu sheegay in weerarka laga sooco isticmaal kasta oo siyaasadeed isagoo adkeeyay in beegsiga shacabka aanu marnaba la aqbali karin sabab kasta ha ahaatee. falkaasi dhacay waxa uu la kulmay cambaarin diimeed iyo bulsho oo baahsan gudaha Australia kuwaasi oo carabka ku adkeeyay ilaalinta wada noolaanshiyaha bulshada iyo diidmada in koox ama aragti siyaasadeed lagu eedeeyo fal shakhsiyadeed iyada oo la tix raacayo lana tixgelinayo siyaasadaha xaaladan kadib dagaalka ka socda Gaza.
si kastaba ha ahaatee habdhaqanka xukuumadda Israel ee ku wajahan dhacdadan ayaa waxa ay u janjeertay ballaarinta macnaheeda arrin falanqeeyaashu ay ku fasireen siyaasadda Israel ee caadi u ah oo ay ku doonayso inay ku xirto rabshad kasta oo ka dhacda xuduudeeda ama dibadooda hadal caalami ah oo ku saabsan nacaybka Yuhuudda. maalgelin siyaasadeed aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Israel Dr. Mohamed Mustafa ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu dhacdadan si siyaasadeed uga faa'iideystay isaga oo ku xiriiriyay mudaharaadyada ka dhanka ah dagaalka Gaza kuna dayay in uu ku muujiyo dhaqaaqyadani khatar amni oo ku wajahan Yuhuudda ku dhaqan dalalka reer galbeedka. sida falanqayntu tilmaantay isku xirkan waxa uu yimid xilli Australia ay qaadatay mowqifyo rasmi ah oo aan la jaan qaadanin siyaasadaha Israel sida aqoonsiga dowladda Falastiin iyo ogolaanshiyaha mudaharaadyo waaweyn oo taageero u muujinaya Gaza, taasi oo ka dhigtay Australia bartilmaameed toos ah oo dhaleecayn Israa'iil. hase yeeshee faahfaahinta dhacdadaasi lafteeda waxa ay jiha weerarisay doodan kadib markii bartilmaameedku ay muujiyeen in ninka ka hortegay mid ka mid ah weeraryahannadan oo ka qaaday hubkiisa oo ahaa muslim muuqaal si weyn loogu ammaanay bulshada Australia. faahfaahintan bini'aadantinimo oo ka turjumaysay adkaysiga dhabta ah iyo iskhilaafaadka sheekooyinka diyaarsan ayaa waxa ay yaraysay awoodda Israa'iil ee ah in ay dhacdadaasi ay usoo bandhigto caddayn muujinaysa kororka colaad diimeed isla markaasina dib u iftiimisay khatarta guudmarin siyaasadeed. inkasta oo Netanyahu markii dambe uu ka noqday tilmaantiisii hore ee qofka isku dayay in uu fashiliyo weerarka, haddana hadalka Israa'iil sida falanqeeyaashu ay sheegayaan waxa uu sii waday in uu iska indho tiro dhacdadan ama dhinacaas isaga oo door bidaya inuu diiradda u saaro waxa uu adeegaya yoolka cadaadis siyaasadeed oo lagu saaro dowladaha galbeedka. macnahaasi iyada oo laga eegayo Dr. Mohamed Mustafa waxa uu tilmaamay in Israa'iil ay ballaarisay fikradda nacaybka Yuhuudda si ay ugu darto dhaleecayn kasta oo loo jeediyo siyaasadeeda amaba diidmada dagaalkeeda Gaza, arrin hoos u dhigtay saameynta ereygan ee aragtida dadweynaha reer galbeedka. hoos u dhacaasi sida falanqeeyaashu qabaan ma uusan u iman si kadis ah, balse waxa uu ka dhashay adeegsiga xad-dhaafka ah ee ereygaasi 2 sano ee lasoo dhaafay ilaa uu lumiyo qayb ka mid ah awoodiisii oo ahaa in uu ka hortago dhaleecayn ama uu abuuro cabsida siyaasadeed ee Tel Aviv muddo dheer ay ku tiirsanayd. ka qaybgalka Yurub doorka Yurub Dr. Salah al-Din al-Qadri oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha dunida Carabta iyo Islaamka ayaa waxa uu ka hadlay dhacdada dhinacyada la macaamilkooda isaga oo kala saaray mowqifyada qaar ka mid ah dowladaha galbeedka iyo niyadda dadweyne ee sii kordhaysa ee bulshooyinkooda. al-Qadri waxa uu ku doodayaa in qaybo waaweyn oo kamida dadweynaha Yurub ay noqdeen kuwo si kordhaysa u fahmaya kala soocidda yuhuudnimada oo diin ah iyo sahnuuniyadda oo ah mashruuc siyaasadeed, taasi oo ka dhigaysa isku dayada in lagu xiriiriyo garab istaaga Falastiiniyiinta iyo nacaybka Yuhuudda kuwa aan si sahlan loo iibsan karinin. fahamkan sida falanqayntu sheegtay waxaa sii xoojiyay muuqaalada ka imaanaya Gaza iyo baaxadda khasaaraha bini'aadantinimo gaar ahaan kuwa rayidka iyo carruurta, taasi oo dib u qaabaysay mudnaanta naxariista bini'aadantinimo ee qaybo badan oo bulshooyinka galbeedka ah. warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale door weyn ka qaadatay jabinta halku-dhigga sheekada rasmiga ah iyada oo gudbinaysa sawirro iyo faahfaahin dagaalkaasi si toos ah, taasi oo wiiqday awoodda hadalka rasmiga ah ee Israa'iil ee ah in uu xakameeyo jihada ra'yiga guud. Australia gaar ahaan fursadaha ay dowladdu uga jawaabi karto cadaadiska Israa'iil waxa ay u muuqdaan kuwa xadidan iyada oo si rasmi ah loo adkeeyay ilaalinta xorriyadda hadalka iyo diidmada in mudaharaad nabdeed lagu qaldo rabshad, mowqif la jaanqaadaya dabeecadda bulsho kala duwan. falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in dib u noqosho kasta oo Australia ay ka samayso mabaadi'dan ay furi karto albaab xiisada gudaha isla markaasina wiiqi karta kalsoonida wadajirka ah ee u dhaxaysa qaybaha bulshada, taasi oo ka dhigaysa qiimaha ka jawaabidda cadaadis siyaasadeed mid aad u sareeya. Maxamed Cabdiraxmaan HB